بسم الله الرحمن الرحيم سو دhowaad asxaabta magacaygu waxa weeye maxamed cabdisaq jaamac ama maxamed charles ku soo dhawaada boostpix kanaalka boostpix kanaalkan sidii aan mataqaanaa horay aan idinkula wadaagay dadkiina ila socday wuxuu ahaa af Ingiriisi ku bixiyay luqadii marka Soomaaliga waxaan ku ballanay inaan mid kala sameeyo kanaal kala sameeyo oo Soomaaliya oo aan ugu talagalay dadka yani aan Ingiriiska aan mataqaanaa aysan aad isugu fiicnayn marka qorshahaygu wuxuu ahaa inaan laba kanaal sameeyo kala duwan midna yahay kan hadda samaysan oo boostpix oo English ah midna uu yahay mid kale oo Soomaaliya markaan dib u xisaabtamay xogaa waqtigii way qaybsami waayay marka waxay noqotay inaan laba channel yani in la maareeyo waqti bay u baahan tahay iyo contentskii wixii taqaana muuqaaladii la sameeyay yaano shaqooyin kala haya marka waxay noqotay inaan mid ka saara meesha kii Englishka marka farax ka qaaday waxaan rabaa inaan kan laftirkiisa boostpix af Soomaali ka dhigo oo af Soomaali u bedelo anigoo aan mid cusub samaynayn marka sidaas ula socda saasan mataqaanaa qorshahaas sameeyay haddana muuqaalkii waad baan rabaa inaan idinkula wadaago oo af Soomaali ah waqti badan ma raba inaan idinka lumiyo intaas waxa weeye waa introduction way marka la ku soo dhawaada kanaalka boostpix sidaasan waxa weeye u soo wadi doonaa waan muuqaaladeennana waa samayn doonaa iyagoo af Soomaaliga aan soo wadi doonaa oo wixii mataqaanaa tutorial haday ahaan lahayd haday cashar ahaan lahayd haday ahaan lahayd cashar guud mar sida hadda oo kale waxaan ku bilaabanaa marka the 6 ways to make money online oo ah lixda hab ee ugu waaweyn ama qalfoofka u ah lacag ka samaynta online qofku marka uu rabo inuu wax bilaabo waxay doonaa noqdeen subjectiga wuxuu doonaa noqdo waxa fiican inuu sawirka weyn u jeedo ama the big picture oo uu u jeedo maadadan uu dhaxgalay yani maxaa ku hareeraysan intee u kala baxdaa qofku inuu arki karo fiican marka sababtaasaan u doorto inaan horta ka soo bilaabo qalfoofta guud ama si guud inaan u soo bilaabo waxaan marka kadib aan hoos u sii daadegno oo aan inta ka dhiman waxa weeye YouTube-keena u samaysan yahay waxa weeye inaan sii furfurno way adigana marka waxa ku fududaanaya inaad kala dooratid kee ku fiican kee mataqaanaa baad la qabsan kartaa markaas ka dooran kartaa marka xabayaanan hadalkaydan ku badin dabcan si waxa weeye guud mar aan rabaa inaan dul maro okay lixda hab marka online lacagta laga sameeyo oo waliba online business yani ma aha way kala duwan tahay marka aad online lacag ka sameynayso iyo marka aad online ganacsi ka sameynayso marna inaad lacag ka samaysid kaliya way ujeedkaagu marna ganacsi rabta inaad ka samaysid marna lacag ka sameynayso marka ujeedkan lixdan markaan soo qaadanayo waa qaabka ganacsiga looga abuuro online yani habkan ganacsi baa ka abuuri karta laakiin waxa jira waxyaabo yar yar oo laga yaabo inaad ganacsi ka abuuri karin sida qodobkan toddobaad oo kale kuwa aan mataqaanaa ku arki doono laakiin lixdaa haba u sareysa ilaa inta way inta lacag laga abuuri karo ganacsiga online business ka iraahdo okay number 1 marka content creation waxa weeye qofku inuu macluumaad abuuro macluumaad content waa macluumaad weeye macluumaadka marka waxay noqon karaan maqal muuqaal qoraal buu noqon karaa sawir buu noqon karaa ina macluumaad abuurtid weeye oo dadka yani wax abuuri kara oo macluumaadka haya oo wax uu yaqaan xog ah xogtaasna ay dadka problemkooda ama mushkilad qof haysata xalin karto ama ogaal u kordhin karto ama xirfad u kordhin karto ama u kordhin karta aqoon ama u kordhin karta yani wax uu qofka ku biirin karta hadii aysan qofku wax akhrin karin ma ogtahay wixii suuq ma yeelanayso macluumaadka haysto waa inuu qofku wax ku kordhin karta marka content creation ku waa qodobka koowaad weeye oo waxa weeye qof kasta oo macluumaad haya macluumaadkiisa lacag ka sameyn kara online marka la joogo marka waa baran doona qaabka loo sameeyo sidoo kale waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo intaan cashar ka sii wadin waxaan soo wadaa book ebook
waxa la yiraahdo buugta mataqaana aan shaashada soo dhaafin oo computerka lagu akhristo baa soo wada marka buugan wuxuu faahfaahin doonaa dhammaan waxyaabahan uu faahfaahin doonaa oo waxa weeye si fiican oo deeply ama u dhexgeli doonaa marka ka walwale waa soo wada insha Allah okay aan ku soo noqon marka casharkeena online store baa ku xiga marka content creation ka qodobka labaad waxa weeye online stores waxa weeye marka inaad dukaan dhistid digital meherad baad ka furanaysaa online waa arki doonaa tusaalayaasha waxa ku xiga affiliate marketing marka waxa weeye waa inaad suuqeyn samayso internet dhexdiisa inaad suuqeyn ku dhex samayso alaab adigu aadan lahayn inaad suuqeyso kadibna aad commission ka hesho freelancing waa qodobka afraad waa shaqaalaha horta ah qof kasta hadda waxa laga yaabaa inaad shaqo joogtid ama shirkad u shaqeynaysid ama company-ga hadda u shaqeynaysid baa laga yaabaa sidaa darteed shaqaalaada laakiin yani shaqaale xor ah baad markaa noqonaysa markaa freelancing oo yani adiga boss ama cid gaar ah u shaqeynaysa ma jiraan laakiin waxaad tegaysaa meelo waxa weeye shaqooyinka online-ka laga helo shaqa iska qabsanaysaa qof baad hawl u dhamaynaysaa lacagta kala qaadaysaa waa kala tegaysaan clients baa u shaqeynaysaa inta kala duwan oo waxa weeye aad isugu imaanaysaan platform baa idin dhexeeya qof waxa weeye aad gaar ah u shaqeynaysa ma jiraan okay trading and investing iyadana waxa weeye baayac musharka iyo maalgashiga baayac musharka marka maalgashiga sida caadiga markaan online-ka la joogin waa la yaqaan qof kasta waa yaqaan Soomaalidu inta badan waxa ku shaqeysata waa trading ba oo inta bagaash iyo bakhaara iyo waxba intaas daba marinaysa waa yani waa baayac mushtar investing kana way sameeyaan maalgashiga marka investing ka iyo trading waxay ku kala duwan yihiin marka caadiga yihiin aysan online ka ahayn waqtiga iyo nooca waxa hantida trading wuxuu ahaa alaab badanaa aan hantimi gurta ahayn in inta la soo jumla lagu soo gado in la tafaariqeeyo kale ama haddii la rabo jumlada laftirkeeda lagu sii gudbiyo laakiin in sii gudbinta in lacag laga faa'iido oo alaabtaas aad marka hore ay soo gadanayso uma soo gadan inaad taqaan adigu consume gareysid inaad u isticmaasho ma soo gadan waxa ugu talagashay inaad lacag ka samaysid taas trading ka noqonayso ma investing marka waxa weeye in wax la maal gashto waa hanti ma gurta ah la maal gashto hantidaas marka dhul bay noqon kartaa wax noqon kartaa wax kasto ma taqaanaa dhismo wax kasto hanti ma gurta noqon kartaa ay noqon kartaa marka online ka noqoto marka way ka duwan tahay oo arki doonaa oo waxyaabo kooban way waxa la trade garanayo ama la invest garanayo wax laga baayac mashruuc wax la maal gashanayo marka online ka la joogo wax la yaqaano way financial instruments baa la yiraahdaa ama financial assets oo arki doonaa okay waxa jira marka SaaS business model wax la yiraahdo ama software as a service waa model kale oo isna ah in ma taqaanaa software adisted kadibna aad dadku ay iska diiwaan galiyaan ay waxa weeye subscription fee ama lacag kire ah ay iska bixiyaan qaabkaasna waa model kale lixda hab marka waa saas weeye lixda hab ma taqaanaa online lacagta looga sameeyo qaybta marka wixii lixda ka soo hara marka waxa uu caansan tusaalahan oo kale online gambling oo kale inaad samayso waxa weeye bakhtiyaansiib online ah oo khamaar tusaalahan oo kale casino oo kale waxa jira moogta online lagu sameynayo game kasta oo yani sida caadiga marka xitaa offline ka online aan la joogin nolosha caadiga khamaar meex uu ka jira marka inaad taqaanaa isagii online ah oo la sameynayo baad ka helaysaa website aad ka helaysaa hadda waxaan ba arkayay website ay wareejinayaan Soomaalidu inta badan ay isticmaasho oo ciyaaraha la saadaalinayo markan one expert wax saas ma ku qornay mar aan arkay marka waa online gambling weeye lacag wax ka sameyn ka daa laakiin somehow lacagtaasi diiniyana waxa la yiraahdaa waa gambling caadi wixii waa khamaar sidoo kale online business kama sameyn kartid marka diin laga wada tagaba yani online business ganacsi kama sameyn kartid reward sites isna waa waxyaabo mataqaanaa website-yo waxay abaalmarin kugu siinayaan xoogaa shaqooyin yar oo aad u qabatay baa waxa lagu siinayaa benis wax yar lacag sentiya yar ayaa lagu siinaya marka dabcan
lixdaas hore wixii ka soo hara online business lagama samayn karo. haddaba aan kasoo gudubno marka. Okay, qodobka marka koowaad ee content creation ka ah wuu tiro badan yahay, laakiin waxaan rabaa marka content creation ama qashid inay maskaxdaada kusoo dhacdo blogging, YouTube channel, ebook, online course iyo podcasting. marka shantaani waa shan hab oo content creation ka loo sameeyo, lacag looga sameeyo. sideedaba marka macluumaad horta abuurisid oo content ay abuurisid, macluumaadkan si toos ah baad u iibin kartaa, lacag uga samayn kartaa. si dadbanna lacag uga samayn kartaa, oo macluumaadka laftirkiisa ma iibinaysid, macluumaadka bilaash baad ku bixinaysaa, laakiin waxaa lacag kaga samaynaysaa si dadban. tusaale ahaan oo kale YouTube oo kale ama blogging oo kale, cidna wax ka iibin maysid adig, dad baa macluumaad baa si toos ah u soo gudbinaysaa bilaash, dad baa daawanaya. marka waxaa lacag kaga samaynaysaa tusaale ahaan oo kale viewskan Google AdSense inta ku xiratid oo kale, Google AdSense oo kale shabakada la yiraahdo oo kale inta ku xiratid ayaga lacagta uga helaysaa. marka si dadban baa uga macluumaadka abuurtay, si dadban baa lacag uga samaysay, marna si toos ah lacag uga samaynaysaa. kuwa laftirkooda way jiraan si toos lacag looga sameeyo, waa arki doonaa iyagoo faahfaahsan muuqaalada dambe ku arki doonaa insha Allah. laakiin tusaale ahaan kale ebook laftirkiisa si bilaash ah inta aad u bixisid baad waxa ku dhex darsan kartaa linkiyo ama linkaxyo, linkska caadiga oo aad isleedahay links laga yaabo inaad suuqeynayso oo kale, ama links waxa weeye productigaaga waxyaabihi mataqaana adigu online ka ku kadisay oo kale baad ku dhex dari kartaa isagoo bilaash ebook. haddii kalena ebook waad iibin kartaa, waa product, waa digital product weeye aad iibin kartaa. saas oo kale online course baad abuuri kartaa, waxaa abuuri kartaa wax adiga xirfad u leedahay ama aqoon u leedahay baa waxa ka samaynaysaa tutorial muuqaal ah. marka course baa ka soo baxaya meesha, course ka soo baxaya platforms baa jira marka la dego ama mataqaana ama website caadi ah dhisi kartaa, WordPress website baa la dhisi karaa, waxaas waa faahfaahin doona insha Allah. laakiin yani lacag baad ka samayn. hadda waxaan muhiimad waxa weeye inaan qaabkan kor ka aragno. online course marka waa content weeye, waa macluumaadkii baad waxa u samaysaa hab online course ah, kadibna waad iibis. siyaabo badan baa loo iibiyaa dabcan. membership baa jira, membership sites waxaa jira bundle ahaan in loo iibiyo, way tiro badan tahay. waxaan arki doonaa podcasting. waa maxay podcasting? waxa weeye isaga dadka wadanaa seasons ka daawada garan kara. waxa u soo saaraysaa waa cod, horta waa cod kaliya weeye, muuqaal maaha, waa cod ahaanba. marka waxa u soo saaraysaa taxaniiba marka kala baad soo saaraysaa iyo qayb. marka episodes iyo seasons buu soo baxaya. marka waxaa la kireysanaya, waxaad lacag ka bixinaysaa media host wax la yiraahdo oo internetka kugu muuqaal, yani codadkii aad duubtay meel internetka ay ka degaan oo lagu storage ah baad kireysanaysaa media host la yiraahdo. danna website-kaaga waxaagaas baad waxa way soo dhigi kartaa oo ku socodsiin kartaa. qaabka loo dhisay yani waa wax yani faahfaahin xogaa technically say u shaqeyso waan arki doonaa, laakiin yani si guud podcasting waa qayb ka mid ah content creation. macluumaadkii baad cod ahaan u soo gudbinaysaa, waa intaa way literally. okay, online stores waa dukaan digital ah. dukaan digital marka waa e-commerce site waxa la yiraahdo, website e-commerce ah baa la dhisayaa oo ah qaab website alaab laga gadan karo, dadku intay yimaadaan alaab ka iibsan karaan baa la yiraahdaa online store. online store markuu tiro badan yahay, laakiin hadda 60 nooc baan soo qaatay oo online store hoos imaanay. waana 6 nooc toos waxa weeye lacag looga samayn karo, ganacsi online aan laga dhisi karo. online shop marka waa maxay? online shop waa dukaan caadi ah, isagoo waa basically waa meesha online store mataqaana ka soo bilaabay ama laga bilaabi karaba, yani ugu fudud fahan ahaan ka bilaabisna adigu wax ka bilaabi kartaa wixii markaa ku anfaca ka bilaabi kartaa. online shop marka waa dukaan ah in alaab physical uu iibiyo oo caadi ah, mataqaana tusaale ahaan kala carwo dhar wuxuu noqon karaa yani dukaan caadi noqon karaa,
waxyaabo wax kasta lagu iibin karaa dukaan electronics oo kale noqon karaa marka badeecadii ay haysay baa ku taxaysaa website-kaaga kadibna waxaad ku qoraysaa price-kii kadibna dadku saasay kaaga iibsanayaan somehow waxaa ku xiraysaa delivery-gaaga wixii baa lagaa rabaa waxyaaba yani business dhamaystiran baad abuuraysaa laga yaabo inaad ganacsi caadi hore u lahayd oo aan online ahayn baa laga yaabo inaan ka dhigtid markaa online ahaan qayb online inaad samaysid ama laga yaabo inaad hore u lahayn ganacsi laakiin hadda ay bilaabaysid anyway online market waxa weeye isagana waa kaasoo kale laakiin wuxuu ka duwan yahay alaab adigu ma haysatid waxaa tahay dhexdhexaad baa tahay waxaad u dhaxaysaa dadka macaamiisha iyo dadka ganacsatada middleman baa tahay marka online market baa furaysaa kadibna waxaad samaynaysaa magaalada dadka jooga Soomaaliya oo kale ganacsatada joogta alaab bay hayaan macaamiil baa ka iibsata haddii marka aad website furatid e-commerce oo online market kadibna aad dadkii ganacsatada aad alaabtoodii aad heshiis la soo gashido kadibna aad ku taxdid website-kaaga kadibna dadka macaamiisha iibsadaan qaab si un baad macnaha ugu heshiinaysan marka revenue ama lacag soo baxda commission bay noqon kartaa waxyaabo badan qaab badan baa waxaan sharxi doonaa Amazon affiliate store oo kale waa qaab wuxuu uga duwan yahay kanu yani company-ga weyn Amazon la yiraahdo oo caanka ah baad waxaa la samaysanaysaa dukaan gacan saar la leh Amazon adigu website baa soo dhisanaysaa gaar ah yani qaab waxa u dhisaysaa e-commerce ah marka website-ka e-commerce ga soo dhistid alaab waxaad iska soo xayisiin waxaad iska diiwaan gelinaysaa waxa la yiraahdo qaybta Amazon ee suuqeynta ma qaybta la yiraahdo Amazon Associates waa qayb Amazon ay iska diiwaan geliyaan dadka raba inay wax suuqeeyaan qaybtaas iska diiwaan gelinaysaa kadib alaabtii Amazon niche baa dooranaysaa waxbaa dooranaysaa waxbaa dooranaysaa wixii aad dooratay marka qaybta yani ma dhar baa dooratay ma kabaa dooratay ma digital products baa dooratay maxaa dooratay wixii aad dooratay ku xiran alaabtii baa marka ku taxaysaa dukaankaaga marka shay kastoo laga iibsado commission baa ku leedahay Amazon baa ku siinaysa Amazon Associate baa lacagta ku siinaysa wax alaabo laakiin ay ka walwalisid ma jiraan iyo tracking-keeda iyo delivery-geeda waxa adigu alaabta ma haysid warehouse waxay ku jirtaa Amazon adigu waxa tahay affiliate baa u tahay kaliya marka store-kaagaas yani way ka dhibyada kuwan online shop iyo online market waxa ka dhibyada mid kale meel kasta ay joogtid baa sameyn ka dhaxalam dad waxa weeye si toos ah u xiriirisido aad barbariyaysid ma jiraan Amazon nidaam baa marsiya kaliya platform-ka iska diiwaan gelinaysa Amazon FBA waa qaab kale waa model kale oo isla Amazon dhexdeeda isagana shaqadan laga qabanayo kan wuxuu uga duwan yahay affiliate ma yani alaab adiga commission ku leedahay waxa ma waa alaab caadi oo adigu aad yani iibinaysid weeye alaabta wax la iibinayo Amazon la iibinayo marka Amazon FBA waa fulfillment by Amazon yani Amazon baa shaqo badan inta badan horta shaqada badan Amazon baa qabanaysa laakiin adiga waxa laga rabaa setup-ki kaliya laga rabaa marka ilaa 6 model baan uga hadlay dabcan buugga aan soo wado iyo qaabka loo sameeyo waan arki doonaa insha Allah sharaxaad dheer buu baahnaya dropshipping waa hab kale markaasna oo يعني alaabtan la yiraahdo alaabahan caadiga waxay doonaan noqdaan ama digital product ha noqdo ama physical product ha noqdo laakiin in aad inta ka soo gadatid adigu soo iibsan mis marka koowaad laakiin waxa soo qaadanaysaa sample-kiisa shay meel buu yaala business qola kale oo ma taqaanaa Soomaaliya kale suuq buu yaala ama qolad Alibaba kale yaala meel buu yaala alaabtaas taala meeshii taale marka baad sample ka soo qaadanaysaa kadib website baa dhisaysaa store baa dhisaysaa salaarka Shopify oo kala ugu fiican meelaha lagu dhiso Shopify waa platform lagu sameeyo badanaa dropshipping iyo store hadartii inaad dhistid waxay doontaa noqoto hada xitaa dropshipping xitaa sameeyeen baad ka dhisaysaa kadib store ka dhisatay baad alaabtii ku guraysaa alaabta marka laga gato marka qiimaha saaranaysaa marka alaabta qiimihii ku saarnaa difference-gii farqigii baad ugu faa'iidaysaa waxaan suuqeyn ma aha waayo alaab adigu aad qiimo saaratay weeye qoladii marka alaabta iska lahayd qiimahooda rasmiga ahaa bay faa'iidayaan adiguna qiimihii aad saaratay baad helaysaa exactly waa model noocaas weeye drop surprise waa wasagii kale weeye oo adeeg
kan waa product ama badeec kana waa maxay adeeg mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa service arbitrage oo qaab adeegii baa mataqaanaa saasoo kale u samaynaysaa qiimaha saaranaysaa kadib qoladii adeegii lahayd waxay qaadanayaan intii caadiga ahayd price-kooda ahaa adiguna farqiga helaysaa model ahaan waa isku qaab wey ma sharxi doonaa dabcan hadda waxba isan jaam kaa dhigin okay affiliate marketing affiliate marketing labadan model baa ugu waaweyn CPS iyo CPA waa laba nooc mataqaanaa customer sale iyo customer action oo kale bay kala noqonayaan oo ah shayga marka aad suuq geynaysid marka la iibsado baad commission ku leedahay wax kan weyn kan laakiin waa maxay iibku khasab maaha dadka aad alaabtan xayeysiinaysid dadka linkigaaga soo raaca oo yimaada oo mataqaanaa kusoo dhufta waxyaabo aan iib ahayn bay samayn karaan haddana lacag bay helaysaa tusaalahaan oo kale emailkooda bixin karaan hadduu application yahay waxa xayeysiinaysa way la degi karaan hadduu survey yahay surveygay bixin karaan yani action bay samaynayaan marka customer action baa la yidhahdaa modelkan waana affiliate marketing buu hoos yimaadaa laakiin badanaa CPA marketing baa la yidhahdaa magac gaar uu leeyahay oo yani affiliate marketing lama yidhahdo laakiin waa model isaga ah ka mid ah sababtoo revenue-gay ku kala duwan yihiin wax kala maaha CPS iyo CPA yani qaabka lacagta u helaysid commissionka kan commissionka waxay ku helaysaa per sale kana commissionka waxay ku helaysaa per action laakiin kana lacag badan CPS ka lacag badan sababtoo sale-ka commission aadiya waxay helaysaa alaabta intay joogto laakiin kan waxay helaysaa yani xoogaa yar lacag yar oo taqaanaa helaysaa sababtoo ah lagugu siin mayo commission aadiya alaabtii revenue-geedii ma aha price-keedii ma aha waxa lagu siinayo waa reward oo kale ama abaalmarin oo kale way marka way ka duwanta badanaa $1 $5 saddex kaba yar mararka qaarkood 0 point something way okay affiliate networks kan marka waxa weeye meelaha laga iska diiwaangeliyo si aad alaab u hesho alaab ay xayeysiiso si aad u hesho meel iska soo diiwaangelinayso oo suuqa weeye meelaha marka iska soo diiwaangelinaysa alaabtii waxa taala waxa isugu yimaada dadka alaabaha haya oo raba in alaabtooda loo xayeysiiyo iyo dadka adiga oo kala ah oo raba inay u xayeysiiyaan dadka waa isku imaanaya meelahan oo kale marka waxa kamid ah Clickbank, JVZoo, Amazon Associate way badan yihiin Commission Junction waxaas waa arki doonaa waa meel suuq ah in-house affiliate programna waa maxay suuq ma ahane shirkad baa gaarkeeda waxay u samaysatay programkaas oo ah in affiliate program gaar ah oo ayada dadka raba in dadka u baahan inay suuqeyn u sameeyaan bay ugu talagashay page-ka in iska diiwaangeliyaan kadibna ayada suuqeeyaan marka badanaa waxa u badan shirkadaha noocaas oo in-house affiliate program sameynaya oo aan meelahan aad ka helin halkan kama helaysid laakiin ayaga inaad toos waxay noqonaysaa website-kooda ay booqatay kadibna aad affiliate program-kooda iska diiwaangelisid badanaa softwares way waxaan sameeya waxaa kamid ah web hosting-ka kuwa sameeyo kala kamid ah email marketing-ka kuwa sameeya kamid ah way badan yihiin waa arki doonaa examples space on the internet waa saga qodobkan kale waxa weeye horta waa inaad marka waxaan sameynaysid oo dadkan suuqeyntan ay sameynaysid ama halkan iska diiwaangeli ama kan iska diiwaangeli waa inaad meel ka digtaa internet ama kan aho ama CPS aho ama CPA aho ama halkan iska diiwaangeli ama halkan iska diiwaangeli kulli alaab baa wadata Soomaa linki baa wadata waa inaad marka online-ka ama internet-ka waa inaad boos ka digantahay marka boos inaad ka digantahay waxa ka wada marka waa inaad ama haysataa website ama haysataa YouTube channel ama haysataa blog haysataa ama haysataa haddaad social media page Facebook page oo kale waa inaad meel haysataa space on the internet landing page baa kamid ah meelaha space-ka oo aan gaar waa baxnay landing page waa website halboga oo website-kan halboga alaab hal shay baa loo sameeyaa hal landing page si halka shay loogu xayeysiiyo iyo sales funnel marka waxa weeye isagu waa dubaalada iibka la yiraahdo dubaalada iibka oo waa qaab
qaabka hadda ugu casrisan hadda wax loo sameeyo waa landing page and sales funnel yani bloggingka iyo hababkii hore iyo waxyaabaha mataqaanaa xitaa YouTube channel in lagu sameeyo affiliate marketing waxaas oo hadda waa iska old version haddii de qofku ay dad badan ku taxan yihiin waa caadi way shaqeysaa wax SEO u haysto ama search engine optimization waa baran doonaa waxaas laakiin hadda qofka bilowga ah oo aan waxaas oo dhan aysan u diyaarsanayn waxa u fiican landing page sales funnel xitaa waa somehow landing page kii oo mataqaanaa advanced ah way sababta page kaasi basanaysa thank you page waa si samaysanaysaa waxa arki doonaa okay free traffic methods dadkan marka waxaan dhan waa dhisatay tusaalahan oo kale dadka dhan waa haysatay wixii dhan alaabtii waa haysataa haysiin lahayd meeshii aad internet ka digi lahayd waa ka degtay landing page dhisto waxaad inta dhisto waa haysataa dad waa inaa heshaa marka alaabtii ka iibsada dadka marka waxa lagu heli karaa marka inaad si bilaash u hesho iyo inaad u hesho si lacag ah oo lacag ka bixiso inaad si bilaash u hesho marka waxa ku siisaa inta kale landing page marka laga tago landing page aad hadda samaysay macquul ma in mataqaanaa la sugtid free traffic iyo waxa weeye waqti muddo qaadanaya laakiin haddii aadan de haysan budget waa laga yaabaa inaad samaysid sidaas oo meelaha mataqaanaa forumska la aadido muddo sugtid laakiin experience-ga dan kaaga sheekayo waa ma fududa wax fudud maaha marka landing page waxa ku fiican tahay in inta landing page samaysid tan paid ads ka timaadid ولا عكوا بحسد جوجل أدس استعمال أما فيسبوك أدس استعمال أما بينك أدس مايكروسوفت أدس نيرف أدس ويبلينهين يعني قليها العقد أساسية إنترنت كدت قصين كنا ويبلينهين سولا أدس بعد كاملة مركا anyway وقت بدن حويه بعد استعمال الله كسر عقيبة عن affiliate marketing كمركا وسوقين تمام ما حصل سمية يعني مهمة وحوي أنا ألعاب أدوك آدم الله هيننا سوق كدنا كوميشن كاش وحلي هذا موديل وفوض العقد الله سميه إنترنت دي أذكرني سقاط الله سميه أوكي شغالها حرطة نمبر 4 شغالها حرطة مركا فريلانسينج حواسة أقول ديران لكن لبعض قيبات دان كأركنها بس أو إنها توصة وتكتو أونلاين شوب ماركت بليسز يعني سوقيو شقة أو أونلاين إنها تكتو سيدا Fiverr, Upwork, Freelancer, People Per Hour inaad tagto oo aad shaqooyin halkaa diyaarsan inaad ka shaqeyso aad lacagtaada qaato contract agasho saas waxa weeye ku samayso lacag iyo ama inaad samayso website adiga ku gaara oo suuqan iyo waxaan aadan teginay tusaalahaan kala dad baa kugu xiran ba waxa laga yaabaa in Soomaali badan ay kugu xiran tahay waxa shaqada qabanaysin macaamiil badan oo Soomaaliya ay u baahan tahay marka waxa sameyn kartaa inaad website dhisatid WordPress oo kale waxa weeye meelaha ugu fudud qofku website ku dhisan karo oo mataqaanaa waxa weeye barnaamijyada noocan ah kala badan yihiin Wix baa kamid ah laakiin WordPress baa ugu fiican dabcan marka inaad meesha website ku dhisatid kadibna aad waxaaga salka ku dadka macaamiisha ku yimaada clientskaaga halka shaqada ku qabatid ama ina iska diiwaan marka bilow tahay website waxaan kama bixi karsid ina wax noqon halkan Fiverr tagtid kale ina gig ku dhisatid waxa la yiraahdo oo dadku ugu yimaadaan Upwork oo kale ina tagtid ka shaqeysid freelance people per hour ka shaqeysid way badan yihiin waxaas adaa baari doona shaqada qabanaysa waxa laga yaabaa inay tahay tusaalahan ka designinka waxa taqaanayo kale turjumaan baa tahay laba luqadood isku turjumi kartaa oo kale waxyaabo badan baa qaban kartaa waxa sameyn kartaa oo kale tusaalahan kale xaysiin hadda ka sheekeynay oo kale oo yani Facebook ads oo kala sameyn kartaa Google ads oo kala sameyn kartaa waxaas oo dhan dad u baahan baa jiro client u baahan in loo shaqeeyo adiga marka shaqadan xirfad baa marka hore dhisaysaa ama xirfad xitaa hadaan hadda xirfad lahayn online kaliya xirfad fudud ka heli kartaa isla markaa baran kartaa then saasad sameyn kartaa insha Allah waxaas waa sharxi doonaa qodobka shanaad trading and investing qaybtan waxa weeye baayac mushtarka iyo maalgashiga baayac mushtarka iyo maalgashiga sidaan hore baan waxaan u soo faahfaahinay marka garanayo wax ama la invest garanayo baa waxa la yiraahdaa financial assets way magacyo badan yihiin waxaan financial security baa jira waxyaabo badan baqlaysan laakiin yani intaan hooyo waxa laga baayac mushtarayo ama la maalgashanayo markii offline ka la joogay ama adduunka nolosha caadiga ah waxyaabaha laga baayac mushtarayo way tira badan yihiin Soomaa oo waxa ku jira bur iyo saliid iyo sonkor iyo wax kasto maacuun iyo
qalabka dhismaha iyo waxaas ka mid ah laakiin hadda online marka la joogo waxa laga baayac mushtaraya ama la maal gashanayo waa intaan weey currency waa lacagta caadiga wadamada lacagtooda dollar salaano kale pound dollarka Australia kale yani waa lacag stock waa saamiyada shareska shirkadaha waaweyn waxa weeye saamiyada oo suuqa waxa weeye yaala intaasna waa shirkado isku tagay oo mataqaana performance-gooda commodities waa waxa weeye ashyaa yani waa product caadiya laakiin ma aha product kasta waa product badana minerals oo kala iyo kuwa mataqaana beeraha ka soo baxo kala iyo macdanta oo kala iyo qayb commodities sida dahabka oo kala iyo waa qayb gaar ah qaybta mataqaana financial asset ka noqon kara commodities cryptocurrency oo kala iyadana waa nooc mataqaana lacag program ah oo waayihii dambe soo baxday weeye oo aad baa hadda waxa weeye loogu trade gareeya loona invest gareeya shantaan marka shay weeye waxa online trading lagu sameeyo ama online investment lagu sameeyo online trading marka sameeyay marka waxa loo sameeyaa waxa la yiraahdo dhiraandirino ama derivatives tusaale ahaan oo kale marka waxa kamid ah CFDs contract for difference waa forex bas oo galis halkan يعني contract difference أما فائدة فرق price كا بالعكس ما ينسى وأنت كليه وفارق سوكله options time بكتير مركان فرق اللي بعض تيسفى العكس ما ينسى لكن ما حي time بكتير وماشي صالح جلي future كوكله وصير كله time بس إنه كتير لكن obligation بالله سيدا option مركان دون تكمل بيحكرت obligation بالله forward risk waa sidoo kale laakiin standard buu taa waa standardized way marka yani waxyaabo noocaas qaab noocaas weeye swaps oo kale isaga laftiisu waa heshiis yani isbedelka waxa weeye yani alaab gaar ah badeecadeeda isbedelkeeda wax ku xiran weeye oo ma taqaana heshiis nooc heshiis qaabka loo galo weeye waqti cayiman gudihiisa yani marka waxaan anaga hadda ma isticmaalno xabaad badanaa Soomaali waxaan ku shaqaysanaysa badanaa ma jiraan ma arag aniga laakiin waxay badan yihiin options kii waxay badan yihiin iyo CFDs way badan yihiin waa trading ka hadlaya ma aha investment trading waa asaas weey labadaan isticmaala salaam option ko kale IQ option ko kale oo isticmaalaan online investment-gana waxa weeye waxa shaqada qabanaya brokers كانوا كله أما دولالنا أو كلا شغلة في القوانين exchanges كله مالها وحوي وحلو كلا بدش كله dealers وحاس وحي كوسه هليا إن مال قشطة stock index commodities cryptocurrency إن مال قشطة وحياها لما كوانا كوسه هلدونا مركا وهلي دونتا ضد وحوي brokers أما متقنا platforms وحن كوفو ضاينها marka alcumuum trading and investing waxa weeye waa inay fahansid waxa la trade garanaya ama la invest garanaya inay intaan yihiin marka la trade garanaya in derivatives lagu trade garayo marka wax la maal gashanaya isla iyaga in la maal gashto bas ay sahlaan investment brokers and exchange dealers inay sahlaan qodobka xiga number 6 software as a service SaaS model بلينا قيبتان لحد وحوي لبا هبا هرتا يعني وكلا قادية لبا هبا وكلا قادية وحوي مايكرو SaaS SaaS عادية انت انا مركا كلا قادين SaaS صورت وحوي وانا application store application كاسو web based عن معناها انا هين وح لا دغدغاyo laakiin web la galayo browserkaaga inta ka cusub inaad gashid baa leeyahay asaas marka dadku marka way iska diiwaan galinayaan dadkiina waxa weeye adeeg bay yani mushkilad bay u xalinaysaa waxbay dadku ka faa'iidayaan shaqo loo qabanaya yani software ka shaqo u qabanaya dadka taas marka waxa la yiraahdaa modelka noocaas asaas adoo hal mar baas software ka samaysay kadib hawada galisay waxa uu samaysay meel dadku iska diiwaan galiyaan lacagtu saas kugu soconaysa modelka ugu fudud xagga lacagta laakiin sameyntiisa yani technically macna ugu fudud yani wuxuu ugu fududiyaa shaqo badan qaban mise mar hadda hawada galisay waa soo galisay kaliya waa la soconaysa kaliya suuqeyn kaliya sameynaysa awood suuqeyn bas promotion awood saaraysa marka laba u kala qaadaya micro SaaS
oo ah يعني software وين وحوي بلا لما نصيه لكن واحد سمين سؤالنا كله WordPress plugin أو كله WordPress plugin أو كله وها أدوات بدنا WordPress كاستعماله ويفهم يعني plugin واحد اللي لحظة وحل بيج أو software شغال كوردين كده أو مثلا software وحوي ويب سايت كاي واحد جاي يابا إنه صن وديار سنين شغال نوع عاصم سؤالنا كله واحد عرضه إن سؤالنا كله واحد جاي يابا إن عرفتي إن e-commerce site oo kale inaad dhisid oo kale marka WooCommerce plugin oo kale la soo degaysaa WooCommerce marka waa plugin loogu talagalay in website-ka hadii lagu soo dejiyo ama lagu xiro in website-kaaga ay u bedesho mid e-commerce site oo store ah marka way badan yihiin plugin waxa laga yaabaa plugin loogu talagalay SEO oo kale ama search engine optimization oo kale whatever plugin way tira badan yihiin laakiin waxa laga wadaa software weyn ma WordPress plugin wax yar waxa weey mataqaana marka dadka coding ka sameeya salaano kale ayaga from scratch ka soo sameeysan kara waxaan sameeynaya WordPress plugin hadii aadan coding aqoon waxa jirta meel laga soo gato dib magaal baan ku arki doonaa kana marka Microsoft waxa kamid ah WordPress plugin ba kamid ah salaano kale waxa kamid ah Google Chrome extension oo kala kamid ah Google Chrome extension marka isna waa wax mataqaan iska simple ah software simple oo yaani ah salaam kale browser ka yaani Google Chrome la yiraahdo extension wax la yiraahdo leeyahay dadka aan garaneyn baran doona insha Allah extension buu leeyahay oo yaani shaqo ku kordhinaya isaga laftigiisa yaani Chrome browser ki isticmaalaysa shaqo ku kordhinaya yaani Chrome kan cusub oo extension kan cusub aad soo dejisay marka dadka يعني كودينج يقعنا from scratch بكبل عويا ويسمينيان دن سوق جلينيان دن قفكي هضي كوردين الصدف كاستعمالية كروم ويلا سو دقيقة مركز سوقيا أو أي كهلا extension كذا مركز لقاها وحي الله ميدا مركز مايكروسوفت بصمين كرتا وحاسبه كلا صمين كرتا أساس عالية وحوجها يعني كوي صارنا كلا جوجل أبي صادن نوع يدور عن نقدين أما درايف عن نقد أما سلايد عن نقد أما جوجل أبس كتير بديهين ونوع أساسه مايكروسوفت أوفيس 365 وكله هو أساس مايكروسوفت أوفيس كعادي هم هو حان 365 مركز صعود هو ويب بيس دوي أو إنترنت يعني بعلو استعمالها مركز وحلو استعمالها وهو بيس نتفليكس وكله هذا يعني فيلمات كتاع وتا وأساس إيميل ماركتينج سوفت ويرز وكله سوفت وير هذا إيميل هذا يعني رقصنا يا سوقين إيميل هذا get response وكله أي ويبر وكله sending blue وبدين ضد استعمال ميل تشين مركا إيميل ماركتينج سوفت ويرز كانوا وأساس موديل SEO tools search engine optimization tools وكله وأساس مركا موديل كان أساس وتر بدن yahay noocaas oo kala dhisi karta sidee marka u dhisi karaa marka saas ama kan ha ahaado sidee u dhisi karaa laba hab marka u dhisi karaa ina programmer tahay oo aad samaysid create from scratch code ingres samee kadib saas u fikir su'aalahan kale meel fog bahaadin waxa way hoteelada waxa way magaalada ama maqaaxiyaha ama meheradaha magaalada wax ka caawinaya adeegooda software ka caawinaya dhis kadib subscription has ka bixiyeen website kaaga SaaS business kaaga has ka diiwaan geliya kadib shaqada ku qabsanaya yani mushkiladu waa inaad ka fikirtaa xalinaysid marka saas sameynaysaa ama qof software yaqaana waxa way coding ka lacag ku si inuu ku sameeyo marka fikradda la timaadid marka wax from scratch laga soo bilaabayo midda waxa way option ka labaad waxa way ku bilaabi kartid adoon isdhibin oo coding aqoon oo aan cid coding taqaana aan wax ku siin waxaan ku bari doonaa meel aad ka soo iibsan kartid scriptiga ama waxa way coding kan ama program kan laftirkiisa meel aad ka soo iibsan kartid marka programka soo iibsatid iyagoo kala duwan baa la helayaa PHP scripts badan baa la helayaa oo internet dhexdiisa ka helisa marka internet dhexdiisa marka ka soo iibsatid waxaad sameynaysaa waad host garaynaysaa yani ma domain name baad gadanaysaa kadibna hosting baad sameynaysaa iyo website yani magac baad u bixinaysaa kadibna
meel ba ka dejinaysa internet ka hoostiba samaynaysa then adiga saa ku yeeshay PHP scripting oo magacaaga ma wada baxday PHP wayna tira badan yihiin adoo software kada dooranaya mushkiladu uu yahay wuxuu xalinayo sidaas marka waxa ku noqonaysa SaaS business model inaad run garaysay oo suuqinta u samaynaysa then saas lacag ku samaynaysa marka qaabkaasna waa qaab kale oo la samayn karo fudud okay marka soo asaasan waxa weey intaasan ku soo gabagabeynayaa maanta muuqaalka waxaan rabaa marka inaan ku daro xoogaa waxa jira waxa la yiraahdo web development mobile development waxa la kala yiraahdo yani isagoo application marka mobile app wixii waa la samayn karaa laakiin yani waa isla habkii oo kale laakiin badan aniga waxaan awood saaray qaybtan yani web development la yiraahdo ma qaybtan web based oo aan ahayn application telephone la aaday laakiin waxa ogaataa in wax kasto web based in app loo samayn karo yani wax weyn ma marka يعني waxaan marka ka baqeen aniga aan la hadlay yani ma ihi background ma lihi waxa weeye programming ama coding ma aqaan computer science ma waliga ma baran IT ma ihi ma maxay laakiin waxaan waa dhex gala qof kasta baran kara waa ina marka waxa aad ka baqeen horta ma yani wax adag marka muuqaalada waxa weeye muuqaalo badan baan sameyn doonaa insha Allah kuwaana si fiican baan u dhex gali doonaa iyagoo يعني صارنا كل أفلام ماركتينج أو كله أما يعبها كله مد بان يعني أصير حاجة دونا إن شاء الله سوى سيدان كفاف حسن سيدو كله إيبوك بدو حاجة لما تقنع إن وحي أن هذا سوق كرين لكن فوا إن هالمرة بحاول أخرستان أو سوى قرال أخرستان أو ولي قرال كام إيبوك وحي كوتشرا لينكس بيا كوتشرا تلمامها كوتشرا ميلو أتحرق بيا كوتشرا ميل الراعي كدي وما تقنع حد وشقد أقبل كدي تلاوين بيا كوتشرا ستيبس معناها انت الراعي وحي أقبل كرتي مركا سيدا أقول خصاب ضمن ربنا إن شاء الله ينقصوا سعره ويبقى بعد السلامة يا وإنه موقع كحيجة إن شاء الله.